shalom kulligiin waxaan ku salaameynaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena ciise masiix soo dhawaada oo ku soo dhawaada Somali Christian TV waxaan nahay lamaanihii aad ugu jeclana ex muslimka ee faafiyay masiixida ka shifana qaladaad kasta haddaan nagu cusub tahay fadlan subscribe YouTube-keena oo ku soo biir bahda Somali Christian TV gambaleelkan u riixso si amarba ogaatid wax bahda Somali Christian TV ay la wadaagaan dadka kale oo dhanba waa anigoo ashina gaabo iyo xaaskeyga shaaniya موضوعنا ما أنتوا حكوا سابسين هاي روح قدوسك صح روح قدوسك يعني كذا شكلنا إن بدل ما تقانان ما نقدر المقلن لقى يابنا نهر مقلن كاسن كشكلنا نكار لدونا هدي ربي قولنا مسامحه لكن دعانكم بلعبنا صح wait Nico the time is not ticking so I don't know we need to do it again no worries we didn't go anywhere yeah no problem okay. But you can hear us yeah my microphone is on now yeah okay let's begin again so, yeah 5, 4, 3, 2. Shalom kulligiin soo dhawaada oo ku soo dhawaada Somali Christian TV waxaana lamaanihii aad ugu jeclana ex muslimka ee faafiyay masiixida ka shifana qaladaad kasta hadda nagu cusub tahay fadlan subscribe YouTube-keena oo ku soo biir bahda Somali Christian TV family gambaleelkan u riixso saamarba ogaatid wax bahda Somali Christian TV ay dadka la wadaagaan kuwa ugu horeysa u noqotid waa aniga ashina gaabo iyo xaaskeyga shaani gaabo موضوعنا ما أنتوا حكوا سابسين هاي روح قدوسك صح dad badan aan maqlan ruuxa quduuska aysan aqoonin marka kaasaan sharxaynaa idin sheegaynaa kan uu yahay adin sheegaynaa waxa uu qabto iyo faa'iido uu leeyahay صح waa ducaysanayna marka hore ya aabo adam hadda maanta iskale waxaan ka baryaynaa aabo in nimcadaada ay nala jirto nimcadaada in xariis ay nala jirto in dhax qalbeeda nuur aabo quduus oo saan ogaan waxay tahay rajada yaristaada waxaan ka baryaa aabo inaad barnaamijkan ama videogan aad barakayso dadka daawanaan aad barakayso dadkaaga inaad badbaadiso Soomaaliya oo dhan badbaadi rabbiyo si ay u gartaa runtaada intaas waxaan ku baryaa magaca sayidkeena iyo badbaadiyana ciise masiix amen 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 Soomaalida inta badan ruuxa quduuska ma yaqaanaan moqt because ma maqlinba ma yaqaanaan ya ma yaqaanaan muxuu yahay ruuxa quduus wuxuu yahay ma garan karaan fikrad fiican kama haystaan ilaahay awoodiisa ruuxdiisa iyo kelimadiisa isaga isku yihiin ma yaqaanaan oo maba ee maqlinba markay maqlaan saddexnimada ilaah ama ilaaha aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska markay anaga naga maqlaan waxa qalbigooda isla markaba soo galaya maaragtay saddex ilaah midadkan aaminsan yihiin marka maanta waxa idin cadeynayna anaga saddex ilaah ma aaminsanin hal ilaah ayaan aaminsanahay halkaas ilaah oo isku muujiyay isaga iyo hadalkiisa iyo ruuxdiisa marka isaga iyo ilaaha awoodiisa iyo ruuxdiisa hadalkiisa waa isku hal xabo waa dhahan iyagaba ruuxullah kalmatullah ay dhahan hadalkii ilaahay waa ilaahay ruuxda ilaahay waa ilaahay ilaahayna waa ilaahay waayo anaga hadda codkayga iyo naftayda iyo jirkayga u jeedaan ma ihi saddex qof ma ihi hal qof aan ka samaysanahay codkeedu ku soo gaaro shaani la kula hadlays codka shiina ku soo gaar shiina kula hadlo laakiin ilaah codkiisa ku soo gaar ilaah kula hadlo awoodiisa marka artay wax walba sameeyay iyo ruuxda taasina waa ruuxdiisa oo wax walba ku sameeyay marka isaga iyo awoodiisa iyo hadalkiisa anagu waxaan aaminsanahay halkaas ilaah oo awood leh hadli karo oo maxay awoodiisa dadka u diri karo oo awoodiisa wax walba ku sameeyay iyo maartay hadalkiisa ku sameeyay dadka xiriir la sameeyay communication la sameeyay maartay rabo inuu adigan xiriir ku leeyahay anaga xiriirna la yeesho marka waa qayb kamid ah saddexnimada ilaah ee kamid tahay waxa la dhahaa ruuxul quduus waa ilaah aabaha ilaah wiilka ilaah ruuxa quduuska ilaah wiilka oo loo jeedo ilaah hadalkiisa wayaan iyo ruuxa quduuska marka ruuxa quduuska muxuu yahay waa awoodi ilaahay ayaan rabnaa in si fiican idin kugu sharaxno waa awoodi ilaah marka waa ilaah ruuxa quduuska waa ilaah waana habka ilaah iyo dadkiisana ay ku xiriiraan hadda adiga waxaa laga yaabaa inaad joogtid waddan kale annagana waddan kale aan joognaa adiga ilaah wuu kula joogaa annaguna nagula joogaa habkuu nagula joogaa marka hab ruuxiyana ayuu inala joogaa waayo ilaah baa ruux ahba kitaabkeena ay ku qoran tahay ilaah waa ruux caabudaa waxay ku caabudaan ruuxa iyo runta marka saas awood annagana waxaan u baahannahay ruuxadiisa ayaan u baahannahay si aan isaga u caabudno haddii kale waxay noqonaysaa qof taagan oo dhagax xaggiis u sii jeestay oo dhagax la hadlaayo laakiin markaa ruuxadda ilaah ay haystay ilaahna uu ruux yahay ruuxadaas ilaah nala siiyey ayaa isku keen xiraysa waa isku xirkeed marka ruuxaddan ilaah waxa loo ballan qaaday iyada laftigeeda in siiyo waa ruuxa quduuska fiir magaca uu tafiira ruuxa quduuska ruuxi badan iska jirjira meelan ruuxi wasaqa xataa way buuxaan waan jiraan laakiin waa ruux quduuska marka maqashan quduusna waa nadiif waa holy english lagu yiraahdaa Soomaaligana waa nadiif marka qofka ruuxadaas nadiifka ah markay ku timaado adigay ku nadiifinaysaa kuuna xiraysaa ilaah marka anaga u baahanahay ilaah ruuxadiisa u baahanahay saan u sameeyno shuqulada asaga u rabo inaan sameeyno saan u helno xoogiisa si aan u awoodno waxa asaga rabo inuu sameeyo
أنا حدنا أفهمنا استجنا كويها استجنا كفهم exactly والروح حدا نلسيشاني هديده نلسي روح الرنت آلي هذا وحنا برتاح رنت ورنت ما هذا الإله مركا هذا الإله وين برتاح مركا فائدة ولا إذا هاي رمز تياشا مركا واحد شيء جنا روح قدوس كان وياهاي شاني واحد عجيبة مسلمين تا مية قانان روح قدوس كا سعد قاك بلاضي وايو النبي جود حتى مركا لو يدي الروح وحيري أنيقا وحتى هذا الروح وحبك قرن معايو وحير بالي شيء أيويري وحسدا ده هيسا آيد قرآن كجتا سورة وحن لنا يا الإسراء وتضبي طبعا سديتن إيشان يا وهو يقول الروح من أمري من أمر ربي وما أوتيتم منه العلم إلا قليلا ما كقرنا علمي كما هيستو أقوى ير ما بك أقوى ير ما بي معناها ما بيقانوا بإنويس ما بيقان روح القدوس وحكويدية ويسألونك عن الروح باليري وحكويدين دون الروح حتى ما بقان ما بحكم متقاني ذا وحكوتر هذا روح إله أمريكي سو كو ماذي أنا جنا علمي بدن ليجا مسينين أنت مفروض باليري اسكره مال كلكم أركيس من لا شاكين كرو من لا يقانو واسداس مسلمك روحيا ومعبودان إله لكن فيزيكالي يجر هان وعبودان قف مال تاجن oo dhahay Allah baa hortaaganahay uusan aqoonin ilaahna kan uu yahay inuu maartay meel fadhiyo meel joogo inuu jeefo inuu hurdo soo jeedo ma kala yaqaan sax sida ayaa waxa waay anaga ma aha waxa weeyaan waa jismi iyo wixii la sameeyay buu iska sameeyay sharcigu iska daba socdaa fiir waxaad ku xukunta weeyaan ilaan Allah wuxuu ku yiri adoon buu ka dhigtay mogto adoomadoodii xiriir ma laha wada hadal ma laha waxaan nin askari amal waay oo amar la si amarkii uu qaadanaya saacada istaag laakiin ruuxda ilaah oo nala siiyay ruuxa quduuska ah sax oo kitaabka quduuska in badan ayuu ku jiraa laga soo bilaabo bilowgii ilaa revelation ka markii la yiraahdo macna muujinta kitaabka quduuska wuxuu ka hadlayaa ruuxa quduuska sida kitaabka quduuska wuxuu ka hadlayaa ruuxa quduuska waa ereyga ilaaha quduuska wuxuu ka hadlayaa ruuxda ilaaha quduuska in badan ka hadlayaa waa dadkeena rumaystay waa u baahanahay ruuxda ilaaha quduuska saan ilaaha ugu xirnaano isagana ugu caabudno sidaas uu yahay ruux anagana haysano ruuxa iyo runta waa hadalkiisa ayaan macnaha ku hadlaynaa caabudaadana waxay ku imaanaysaa ruuxadiisa oo isu keen xirta oo anagana maartay aan la joogno marka waxaan ka bilaabaynaa inaan aqrino Yuxana cutubka 14 aayadaha 15 ilaa 18 صح أنا أخرنا عيسى وحو بلن قاعد الروح عيسى وحو بلن قاعد على الروح مركو بحي أيو لحد لا اسم مسيح ويا محت لقصو حيقنا كتاب قدوس كأه وحو ليه هاي ربي جانا عيد شنتونات هدي أتجعشهين قينونا ذا واتحجين دونتان أنا قلنا أباهم بري دونا isna wuxuu idin si doonaa gargaaro kale inuu idin la jiro waligiin aamen waxa weeye ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin waayo ma aragto garanna mayso idinkuse waad garanaysaan waayo wuu idin la jiraa wuuna idinku jiri doonaa idinkagama tegi doona agoonimo ee waan idin imaanayaa halkan ballanqaadi badanaa ku jiro koow wuxuu noo sheegaa ciise masiix عيسى مسيح وبحايا جنة وصعد مركان ومركو محيط حرت كتجاي وحب بلن قاعدة وحوليه أنا أبا إذين برياي وحول إذين صدرايا روح قدوسك أو كل إيمانا مجع رب عيسى مسيح ده وحدها يعني عيسى هذا روح قدوسك وحقارة وحدها يعني ذاتك قار ما كل إله ما هذا له وحليهن روح قدوسك الشيء ومحمد ذاتك ما يحق لي كرا نو شان أنت سنتين لا بلا مكهر محمد هداي واتاني رأسه ما بيقانه بالروح قدوسك كو وحير روح قدوسك ما أقاني قرآنك وكشاك أنا ما أقاني الله بكوير متقاني وحيرا كتقانا قف دكوي دين سأدو ده سامركا ومحمد وعدد صومالي وحيرا إنه كديجا أما مسلم وهو إنه ما كديجا وما دام اللي وإيمانا يا وإيمانا عيسى مسيح وحكدم بين نبي كلام نبي محمد حكدم بين إلى أمانتان إنه السجى هم حايدين عدين سكوب وحيد يري السجى لفتك سعيد يري محمد قرآنك دكويري محيط أنيقا ما أقانو ما عرفتين وحوي روح قدوسك ما بأقاني وحير لبعيرا كقادك ويدين ما أقاني الله كل هاي سمرك يصير روح قدوس أضاء أهل ليه لا دوس عن الله ماشي وحكاية عد إنه سنهن تذكر إنه حكوا إيوه بيسان هذا ترى محمد ويان وحال الروح قدوسك ومجع عيسى مسيح كو إيمانا عيسى مسيح صدراي عيسى مسيح يا صدراي عيسى مسيح أباها ده أدر because أباها يويلك روح قدوس كويس كودمت
وأمرك إلهي عيسى أمرك إلى هذا الإلهي واي يروح لي مرك الروح لأن صدر وحال يري محيط دونيدو قرن محل قادن محل هاي وحوي روح رنتا أو أنا دونيدو قادن كرين قف لمن معها واي مقر معرك تالير وحلو جدا محمد ولا أركاي محمد ناقو أروس المطلع محمد واتقان أنت حاسو قرص واتقان أنتو المطلع ولا سعتين لبيجيني ويان محيط وادنكو رسبكتين وادنكو حشميننا وحادنك أمسنتين لكن محمد ما أهتن واي وحاكو قرنيسا وحال يري معها محيط دونيدو إذنك ما قاعد كرتو معها قف أنت العرك لغا قادنا وايو ما عركتو وحان لأركيني قف العركي oo la taabtay oo naaga guursado oo ilmo dhalay ma noqon karo wax aan la arkeynin oo ruuxda ilaaha garana maysaa lahay idinku se waad garanaysaan yaa garanayo dadka masiixiyiinta kaliya garanayo waayo wuu idinla jiraa wuuna idinku jiraa maxamed maanu idinku jiri doonaa wax socoto ilaa hadda way socotaa anaga wuu jiraa ku iman doonana ee rumaysan wuu ku jiri doonaa marka maxamed baa qof ku dhex jirana qof kasta oo masiixi ayuu ku dhex jiraa maxamed anaga nuguma dhex jiro maxamed wuxuu ahaa qof bini aadan ah wuu dhashay wuu dhintay idinka aaminsan diintiisa haysta anaga waa soo haysan jirnay markaan aragno runtii waan ka soo tagno waayo kulligeen Soomaalida meel walba joogtaan kullee waxaan aaminsanahay anaga horta aad badan idin jecelnaa familkeen qoyskeena Soomaali Christian TV nahay ilaahina wuu idin jecel idin qabnaa inta u fadhinaa anaga muslim ahaan jirnay maxamed baa aaminsanay quraanka daba soconay xadiiska laakiin runtii aan helnay kitaabka quduuska waxa ku qoran runta markaa heshaan runta way idin xoreynaysaa runtan waa ciise masiix wuxuu dhahay aniga kaliya ah runta iyo jidka iyo nolosha qofna jannada ma iimaana xaggay ku yimaado maahe marka anaga runta markaa helna waan ka soo tagno waayo waxaan ogaanay inuusan fiir hadda meeshan waxay cadeynaysaa ruuxul quduus waxa la inuu jiro waa awood ilaahay oo aan la arkaynin oo dadka kale arkan laakiin helayaan dadka masiixiyiinta bas waxa la waa la siinaya hadii ahaan lagu siinaa waa awood ilaahay wuu ku dhex jirayaa maxay awoodiisa dareemaysaa oo ogaanaysaa waxa lagu garanayo waa idin sheegi doonaa laakiin kaasi waxa la idinka ma qaadi karaa wuu idin joogaa waligiis inta adduunka saaran hadda maxamed ma nool wuu dhintay laakiin masiixiinta dhan way jooga oo nool weli wuxuu ku jiro ruuxa quduuska adigaas maanta daawan hadda maanta aqbashidna ruuxdan quduuska ah hadiyadaas waa lagu siin doonaa yes aayadahan aan aqrinayno oo aan aqrinay shaani hadda fiican u dulmartay waa Yohana cutubka 14 aayadaha 15 ilaa 18 meelo badanna waa lagu sheegay ruuxa quduuska laakiin waqtiga daraadiya ayaan qaybtan hadda anaga soo qaadanaysaa in kugu cadeyno ruuxa quduuska in hadiyad uu yahay oo loo soo diri doono rumaystayaasha Ciise Masiix wuxuu leeyahay waxa idin soo diri doona marka anaga idin ka tago ayaa idin soo diraya baa leeyahay bal u fiirsa marka aabaha ayaan bari doonaa aabaha ayaan la hadli doonaa hadalkii iyo aabaha ereyga iyo aabaha yuu soo diraya ruuxa quduuska haday shaani marka bilaawis hadalku waxay tiri anaga waxaan caabudnaa ilaaha isku keen nuujiyay aabaha wiilka oo ereyga iyo ruuxa quduuska saddexda oo meeshan isku dhex yaalaan wana isla jiraan waan isku mid waa isku hal xab waa ilaahay hadalkiisa aabaha marka tiraahdo waa ilaah baa ka hadashay wiilka ama ereyga marka tiraahdo ilaah baa ka hadashay ruuxa quduuska marka tiraahdo ilaah baa ka sii hadlaysaa marka saddexdooda waa isku wada xiran yihiin waan isku mid bay yihiin waxayna natusayaan midnimo dhameystiran oo anagana bini aadan ahaantan la rabo inaan midaysnaano anagoo isku dhacaynin laakiin mid walba maarta hawshiisa si saxda uu qabana waayo awoodda ilaah waa ruuxada ilaah ayaa ah waxyaabaha wax walba samaynaysa aamen hadalkii ilaah ayaana dhahay Ciise Masiix ana idin soo diraayo marka hadalkaas marka la soo diro hadalku markuu noo soo diro ereyga oo ruuxada uu noo soo diro ruuxada inaan aqbalnaa la rabo marka يا أقبلها مركا ويقانا مسيحينتا محمد مركا مع عيسى مسيحة صدر مركا ما حدير هدان وإنا أقبلان إن الله أما إله محمد إنه يا عيسى مسيح عيسى مسيح إنه إنا أقبشاه مركا وإنا أقبشاه وكان مسلمين تقولنا مركز وإنا أقبلا ما دام النبي يقول أقبلا إن عيسى مسيح وياه إله أيضا إن عيسى مسيح وإله وياه إنا أقبلان واي وإنا أقبشان هذيك لا تأرجمنت كان وحبي من قناعي وكعبه وسانة إنك أفتان عيا ونكسر والروح القدوس كا لما أرك كارو والروح محمد ولا أرك ولا تعبتي ونوجر أنا روح القدوس كا محمد قف حجرة ملها مركا عيسى مسيح وحولي قيبت دم إذا كم تجي دونا أقوى محل قف أبيه وكأنت أمارته عدل الله تجي لكن وهذه إيمانيا مركا أنا إذا كتجو روح القدوس كا هذه إيمانيا مركا روح القدوس كا سيدها ومد بيسكويين الروح القدوس كان وحال الله تلاقى إنه هلان ذاتك الرميستي هذا الك صح كل كور الرميستي عيسى مسيح وحي نقول دونا عروتي له أنت عروتي له نقطنا وعه جامد دون تاليري روح الإله مركا روح القدوس كا إله وحوين وهديد dadka ilaah uu talgalay inuu siiyo waana ruuxa runta ah sax waxa ruuxa runta marka lagu siiyay oo anaga haday aan nire
إله والروح وحويان يوحنا عتب كيس أفراد آية لبعتنا أفراد إله والروح كو عابدا وحي كو عابدا يعني روح يرونتا وانا الروح هذا رونتا انا واحد يدا اله ودكيس وسينايو marka hadaa rabti sir ruuxiyan ah ilaah ina u caabudo asana ku xirnaato waxa u baahan tahay hadiyada ruuxa quduuska ina hesho ruuxa quduuskana waxa ku heli kareysa ina rumaysato hadalka ilaa hadalka weyn ka soo diraaye hadii kale ma heli kareysid marka hadalka ilaah waa ciise masiix rumayso isaga markaas waxa helaysaa ruuxa quduuska صح marka ciise masiix laftirkiisa annagana wuxuu leeyahay hada akhrisin Matayos 28:19 dadka masiixiga markay masiixi noqdaan wuxuu leeyahay masiixinimadina meel hala fadhinina wuxuuna leeyahay baxa hadaba taga oo qurumaha oo dhan xirka dhiga oo ku baabtiisa magaca Aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska meeshan waxa lagu sheegay ilaahan aamino wuxuu ka kooban yahay saddexnimada ilaah markaa maqash saddex ilaah inayna jirin lagu tusaaya laakiin uu yahay hal ilaah erigiisa wiilkiisa iyo maxay ruuxa quduuska wiilkiisa marka la dhahay eriga ilaahay markuu jir yeesho oo adduunkan yimid eriga ilaahay waxa la wiilka ilaahay ayaa la dhahaa masiixiyiinta eriga ilaahay aqbasho dhan masiixi oo meel bujoogana intii ciise masiix aqbasho dhan ilaahay wuxuu siiyay amar ay ku noqdaan caruurtii ilaahay kulligeen waxana caruurtii ilaahay oo manhin caruurta dambiga ama adoonnimada adoonka iyo maxay u ah dambiga oo ah adoon u ah manhin anaga adoon manhin laakiin waxana caruurtii ilaahay waa ilaahay kalmaduna ugu yeeran ugu soo dhaweysana marka ilaahay badan oo beenaa jiro oo qalaad awoodna ma laha shiino mana hadli karaan erigoodan kuma soo dirka fiir anaga bini'aadana ayaa maanta isdaawanayno codkeena idin soo duuban video waxaan laga yaabaa adduunka anaga Yurub joogno idinka Afrika inaan naga fiirsanaysa ama America ama Yurub meelaha nala joogtaan laakiin aan kala fognahay haddana aan awoodda seysano aan xiriirkaas ku yeelanayn ilaahiga cirka dhulka sameeyay awoodana mid ka weyn u haystaa ruuxdiisa quduusku haystaa hadalkiisa wax walba ku sameeyay haya hadalkaasina waa ciise masiix ruuxdiisana waa awoodiisa isagana wuxuu ka sameeyay la ruux iyo run waa tusheena hadii loo sheegay marka isagii ayaa wuxuuna leeyahay marka adiga masiixi noqotid gurigaas iska fadhinin baxuu ku leeyahay hadaba taga waxa laga yaabaa in la sheeni maxaa hadaa idinka kristaan noqotay maxaa dadka kale in la u sheegtaan ugu baahantiin amar ayaa nagu la siiyay annaga dadka masiixiga noqdo dhan kulligood ilaahay ayaa amar siiyay waxa waay kulli tabliiq waayo waxaan helnay jidka jannada helnay lama rabo hadiidan marka adii lagu siiyay hadda magaalada tagtid oo aragti magaaladii dhan oo wax hadiido la qaybinayo oo dahab lagu soo shubo oo lacag waxa u baahan tahay lagu siiyo oo cunto lagu soo siiyo guriga marka imaatid Soomaalida dhan aa wacaysa taqaan hebel war dukaanka taga war xaga taga ana waxaan aqaanaa Yurub marka joogno dukaamada mararka qaar waa la soo raqiisiyaa marka la soo raqiisayshino gabdhaha hadday soo arkaan oo kale ama nimankay dadku marka soo arkaan dukaamada marka arkaan lacagtii wixii meeshii 100 lagu gadaayo kale marka laga dhigo 20 telefoon ay ku soo diraan marka iyaga soo xaafsadaan guriga markay imaadaan dharkayga iska siibeen kabaha heblaayo saaxiibada wacay hooyaday wacay walaalkay wacay waxay leeyihiin waxa taga dukaan hebel wixii oo dhan waa la soo jibiyay maanta qiimo jaban 20 isku soo aruursada dadkii oo dhan halka juku dhahay bal ka waran hadaa jannada heshay ka waran adiga jannada lagu bishaareeyay ma jannada baa qarsanaysa ilaahay wuxuu dhahay jannada ha qarsanin ana jannada waxaan rabaa dadka dhan inay imaadaan marka wuxuu leeyahay isaga taga oo qurumaha dhan xir ka dhiga qurumaha dhan masiixi ka dhiga la wada xir ka dhiga oo ku baabtiisa magaca Aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska waxaan la tusaa ilaahayna inuu yahay aabo inuu maxay erigiisana wiilka yahay iyo ruuxdiisa awoodiisa quduuska oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eeg had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa waqtigu u dhamaad ciise masiix hadda jannadu joogaa haddana waa ognahay inuu nala joogo soo noola joogaa waayo waa ilaahay ciise masiix waa hadalka ilaaha nool meel buu joogaa ilaah jirka ayuu bini'aadan ah jirkiisa 100% bini'aadan ah laakiin ruuxdiisa waxay ahayd 100% ilaahay ruuxdii iyo kelmadii ilaah oo jir soo wada waa xagga jirka uu ka dhintay wuuna ka sarkacay haddana jirka laftirkiisa uu sarkacay waayo awood u lahaa uu ku bixiyo oo haddana ku soo ceshto dambigaagii iyo kayga markuu qaaday haddana uu ka sarkacay maalinta saddexaad jannadu aaday wuuna soo noqon haddana inta wuxuu noo ballan qaadaya marka anaga baxno oo qurumaha dhan xir ka dhigno oo masiix u sheegno oo baabtiisno inuu nala joogayo ilaa waqti ugu dambeynta uu nala joogayo suu noola joogaya ruux ahaan ayuu nagula joogaa waayo ruuxul quduuska waxa la uu idinku jiro waa awoodii ilaah oo ku hogaaminaysa ilmo yaryar kaligood ogama tegaysa guriga kuma xiraysa qof weynaa uga tegaysa ilaahay marka anaga adeecno aamino inaan dambi ku dhex dhacno ama meel xun ku dhacno ama jirkana hogaamiyo ma rabiyo ilaahay wuxuu rabaa in ruuxdiisana hogaamiso inaa wixii xun aan dhahno no aan diidi karno awood aan ku diidno aan lahaano wixii wanaagsan aan ku dhahno waa ogolnahay aan yes dhahno wuxuu ilaahay raali ka yahay intaas waxaa noo qadarayso
وأودي إلهي ولا ده روح القدوس وحنا هلي كرو قفك مسيحي كلي قفك المهلي كرو وهذه إلهي ما أنت داعق بشان دي كنا وكنت مع درب عيسى مسيح قف كستهم أو رب ما أنت مسيحي نقضه حدي قلبي كرمس أفكنا كقرت عيسى مسيح حتى عن كل حد لأنه وحيل السهديد الروح القدس وولقت كل جرس أو كل جرس أو كتوبرس أو كفهسين هذا الإله حتى كتاب مكاك الفرتيد أتفهم سعندها كفر معي نور السبع هلسة هذه قد استبدل كود عاي أنا الدشين واحد استمر كوم مسيحي نقوناي ومسلم كسب بحاي كنتي مركان هل الروح القدس كإيه ماذا aniga dhan waxaan noqday sida cunug yar oo hadda dhasho kala noqday runtii marka sheena gaariga markaan ka xeysano kol magaalada markaan meelaha banaanka sii mareen meel walba maxaan ku dhijir qurux badana doorka qurux badana cirka indha kala ilaahay siiba dadka bini'aadanka qurux badan wuxuu ilaahay sameeyay qurux badana marka sheena wuxuu dhijir maadii xad ma dhalatay maxay waxaan hadda arkaysaa horaad u arkeen runtii indhaha qalbiga hadda ilaahay hesho markaas ruuxda qalbiga ayaa ii furantay waxaan ogaaday ilaahay jacayl inuu yahay wax walba uu sameeyay uu yiri waa qurux badan yihiin dadka dhanna uu jecel yahay wax walbana looga jeedo amaanta ilaahay markaasaan yaabay aan farxad ku soo dhaweeyay waxaan waxaas intuusaa wuxuu ahaa awoodii ilaahay oo igu jiro ruuxa quduuska oo igu jiray maanta u yeerta weydin ag joogaa yes wasaas rabbigana ciise masiix asaa ballan qaaday inuu dadkiisa siinayo ruuxiisa quduuska waa ballan qaad markuu tagayay waa gadaal aan cilneenaa sheekada si fiican uu si fahamtaan haddana wuxuu yiri xirtiisa markuu asaga ka tagay waxay is yiraahdeen hadda waa idin dhamaatay idinka wax kale ma samayn kartaan ciise masiix idin la joogay wuxuu sameynayay wax walba oo maartay mucjisooyin ah wax badan uu baraa ayaka laakiin markii ay kaligood ay noqdeen way isku dhaxdhaceen waxay yiraahdeen maxaan samayn karnaa anaka 3 sano la joogeen agtiisa wax ka baranayeen marka la diray waa la diray hadda aayad shaani akhrinaysay baxa la yiri marka waxay leeyihiin saan ku baxnaa anaga kaligeen waana run waxma kaligood inay yihiin ismaleena qofna haddaad dirayso oo aad tiraahdo maanta kaalay heblow dagaal aad qofka haddaadan qalabaynin oo aadan difaacin dagaal miska aadi karo waxa qofka leeyahay wuxuu leeyahay maxaan sameeyaa marka rabbigu wuxuu leeyahay waxaad heli doontaan awood ballanqaad waa marka waxaan akhrinayaa falimaha rasuulada cutba 1 aayad 8 sax noo akhri laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego amiin oo marqaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yerusalem iyo Yahuudiya oo dhan iyo Samaria iyo meesha dunida ugu fog Soomaaliya waa maanta baadiyaha laga yaabo dad inay hadda joogaan laga daawanayaan inay maqlaayaan qof walba waxa la leeyahay oo rumaystay ciise masiix waxaan siin doonaa xoogaas muxuu noqdaa ma aha qalab ina qaadato hub ina qaadato seef aa qaadato ma aha awoodda ruuxa quduuska ayaa kugu soo duldegaysa markaasaa samayn karaysaa waxa ilaah rabo inuu samayso ilaahna kuma dhahay aniga isoo dagaalan wuxuu ku leeyahay ereyga gaarsii dadkayga gaarsii jaceelka u qaba dadkayga gaarsii nabadda iyo wanaagan u hay gaarsii wax walba wanaagsan oo ilaah xaqiisa ka imaaday filim wanaagsan ilaah wanaagsan gaarsiinaysa ma kale dadkayga ii soo dil ajiran ku siina kale dadkayga soo lugoy ama soo caay ama been u sheeg taas maaha ruuxa quduuska markuu ku yimaado wuxuu ku barayaa wadooyinka xaqnimada ilaah uu leeyahay ayuu ku siinayaa waxaan laga bilaabaa baa lagu leeyahay gurigaaga way dadku waxay joogaan markaas Yerusalem ruuxa quduuska wuxuu rabaa in dadkaaga markuu ugu horeysa ay gartaan hadalka ilaah sida hadda shaani ay sheegtay anaga naga bilowday shaani markay masiix noqotay waxay tiri ani masiixi baan ahay idinkoon kugu yeeraa sax marka hadiyadii ilaah oo yeeshay waxa kamid ah tusaalahan oo dukaankii la soo raqiisiyay oo shaaniye tiri qofka markuu ka soo noqdo dukaankii dadka dhan uu sheegaya yuu sheegaan ku dhow uu sheegaa marka hore heerkiisa saaxiibadiisa dadka uu sheegaya ereyga ilaah iyo masiixiyadda waxa la rabaa ruuxda ilaah in kaaga bilowdo gurigaaga kadibna yahuudiya waxa laga wadaa agaarahaaga iyo meel walba ilaa dunida inta ugu fog waxaan rabaa inaan inta taabsiyo marka dad qaar ah waxay leeyihiin masiixiyadda waxa loogu talagalay kaliya ama ciise masiix wuxuu u imaaday yahuudda kaliya u imaaday xirtiisii intuu diray ayuu wuxuu yiri xoog baa helaysaan xoogayga ruuxa quduuska waa idinkaga matagaayo yiri agoonnimo laakiin waa idin soo noqonaya wuxuu ku soo noqday hab ruuxa quduuska markuu soo noqday wuxuu yiri dunida meelaha ugu fog oo dhan aada dadka la wada gaarsiyo way wuxuu yiri injiilka waa inuu gaaraa adduunyada oo dhanba injiilka waa in lagu wacdiyo boqortooyinka dunida oo dhan si dadku ogaadaan in injiilka uu yahay hadalka ilaah ah nimcada iyo runta ka buuxdo صح soo noqoshada ciise masiix uu soo noqonayo xitaa oo hadhow jannada noo qaadi doono qiyaamaha la gaarayo xitaa wuxuu ku xiran yahay injiilka inuu gaaro adduunka dhan ilaa meesha ugu dambeeya tuulooyinka ugu dambeeya hadda Soomaali waxaana dadka ugu dambeeyaan baskiyo idinka tagin janno waa waxa idinku yeeran ma dukaan la soo raqiisay oo 10 laga soo dhimo ama 20 laga dhimo ama 100 laga dhimo ma aha kani waxa weeyaan dambigaagii oo dhan oo buuraha sala eg
ayuu ilaahay wuxuu leeyahay badda hoosteedaan ku duugaa uu leeyahay maantana ma dhihi kartid dembi ma gelin waayo kitaabka quduuska waxaa ku qoran kulligiin intaad dambawdeen gaari weyseen boqortooyada ilaahay ka gaabiseen qofna hadduu yidhaha ma dambaabin weligay beenaalo waayaa la yidhi kulli waa dambaabnay kulligan waxaa u baahna badbaadiyaan u baahna badbaadiya markaan aqbalno hadiyadaasuuna siinaa waayo hadiyadiisana way wanaagsan tahay annaga ma aaminsan sida muslimka oo kale dhahay khayr iyo sharro waxay ka imaata ilaaha ka imaata no ilaah waxaa laleeyahay wax walba wanaagsan ilaaha ka imaada wixii xun shaydaana ka imaadeen marka hadiyad wanaagsan waayo maaha ruuxyadii oo wasaqda ahaa idinku soo deganayo oo saararka aa qabteen oo wadaadada inta wata biyaha laidinku rusheynayo ma aha ما كي مسوحنا نقللنا ما وإلهي أوديس إله أوديس مركا كل ما تجرك عف ماذا كهله مسكح هذا الفكرة هلسا وقرنا هذا الكإله وكل قرنا رنتي بنتا اسم مسيح إنه جد كها فهمه dadka kale waa la jeclaanaysaa waayo adigu xataa qof janno loogu bishaaro dambiga laga cafiyay maxaa ka wanaagsan maanta annaga waxaan kugu yeeran waxa waaye la jannada le waay meel kale ma aha ina heshaan hadiyada ruuxa quduuska oo ku imaato rumaysadka ciise no akhrishaaniya falimaha rasuulada 2 aayada 38 si dadku ogaadaan in waxan ay yihiin wax caam ah dadka dhan loogu talagalay ay ka xigto oo kaliya inaad rumaysato waayo ilaah baa wuxuu leeyahay kii walba oo rumaysta waxa ku maraysa waa rumaysad marka rumaysato hadalka ilaah waxa lagu leeyahay hadiyadii waa heshay marka ciise masiix waa hadiyadii ilaah uu noo soo diray laftigeeda laakiin ruuxa quduuska saa ku leed waa ina isaga waa isaga kan soo diraayo waa isaga kan si ballan qaaday waana isaga kan adigana ku soo noqonayo oo hab ruuxiyan ku soo noqonayo filmada rasuulada cutubka 2 aayada 38 waxa ku qoran markaas Butros oo xirta ciise masiix kamid ah iyagii ku yiri dadku wacdinay idinkoo kale hadda aan la hadlayno kale ayuu wuxuu ku leeyahay iyagii ayuu wuxuu ku yiri toobad keena oo midkiin kasta lagu baabtiiso magaca ciise masiix dambi dhaafkiina aawadiis oo waxaad heli doontaan hadiyada ruuxa quduuska lagu dhin shaqo gooni ah waxa u baahan tahay jis inaad toobad keentid oo lagu baabtiso magaca ciise masiix waxa helaysaa hadiyada ruuxul quduuska hadiyada guriga wadnahaaga ku soo degayso hadiyadaasa adiga kula joogso hadiyadaas anigu ila joogta shiina wala joogta dadka Soomaali joog masiixiinta haddana daawana wala joogta qof kasto masiixiya adduunka meeshu ka joogaba hadiyadii ilaah wala joogta waayo magaca ciise masiix dad aamintay oo lagu baabtiisay magaca Aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska waxaad helaysaan dambi dhaaf waa hesheen alwiiri ka bacdina waxaad helaysaan hadiyada ruuxa quduuska maanta intaas hadiyad weeyaan ka waran hadiyad weeyaan ilaahay ayaa wuxuu rabaa inuu hadiyadin siiyo ruuxdiisu rabaa inuu siiyo awoodiisu rabaa inuu siiyo dadka way jecel yihiin farsamo in la baro fiiri way jecel waxa jir mahmaha ingiriiska waxay dhahan qofka hadaa malaayga bartid malaay hadaa siisa hal maalin quudisay laakiin malaayga sidoo loo dabta hadaa bartid noloshiisa inta ka dhimana quudisay waayo mar walba wuxuu soo qaadanaa hal mar hadaan kuu duceeyo ama wax kuu qabto maxay halkaas maraan ku caawiyay laakiin weliga hadaartid caawimo ah iyo weliga hadiyad aan gaboobeen dhamaaneen dhimanaynin oo kula joogayso waxa waa inaad toobad keentaan oo ciise masiix aqbashaan qalbiga kurmaysa afkana ka qartan sawashan hadiyada ruuxa quduuska waa hadiyade qaata si ilaahna ugu caabudaan si ruuxiyan ah oo adan ugu caabudin hab jismiyan ah waa ilaah u rabo marka ruuxaani had waxay aad u shaqaysay waa idin ku jiri doona waa idin la jiri doona waa idin la joogi doona sidee ku ahaanaysa taas waa hadiyad lagu siiyay waa aqbalaysa waa lagu duceeyay waa aqbashay hadiyada ruuxa quduuska ku siiyay yiri aamin baa leedahay ruuxadii baa ku imaanaysa markaas kitaabkan waxa ku qoran Corinthians 1 cutubka 6 aayadaha 19 ilaa 20 ama miyadan ogeyn jirkiinu inuu yahay macbudka ruuxa quduuska ah idinku dhex jira aad ilaah ka hesheen صح idinku isma lihidiin waayo qiimo weyn baa idinku soo iibsaday sida awadeed ilaah jirkiina ku amaana jirkaagu ku dhex jira marka ruuxda quduuska heshid waaw aniga aadan u jecla waayo idinka hadda masaajidka waxaan malaysay inuu ilaah joogo masaajidka aadan kristaanka waxay tagaan maxay ahayd kaniisadaha yahuudda waxay tagaan synagoga meelahaas oo dhan waxa ka fiican jirka masiixiinta waayo wuxuu fiican yahay macbudka ilaahay waayo asaga yaaba ruuxi ilaahay ku dhex jiro ruuxi ilaahay marka ku dhex jirtid wax walbo xun waa ka fogaana waayo kaniisada dhexdeeda ama masaajidka dhexdiisa ama synagoga dhexdiisa qof cibaado u yimid xumaan ma sameeynayo hadii uu dhaco korkaaga yaaba kaniisada waxa lagu leeyahay jirkaaga amaan ilaah baa ku amaanaysaa because kaniisada maxaa laga sameeyaa ilaahan baa lagu amaanaa wanaagsan baa laga sameeyaa moogta meelaha lagu cibaadaysto dhan waxa doonta baa aadimisantiin waxa u tagaysay cibaada u tagteen moogta xumaan uma tagaysay korkaagiba hadii uu dhawaa ruuxul quduuska ku jiro ilaaha amaanaysaa oo ku amaanaysaa adigii ayaa tahay ruuxul quduuska wuxuu ku dhex jiray sidaas darteed anaga waxa la dhahay jirkiina hal jiifinina qof aan masiixi ahayn qofka masiixi oo jirkiisa ku jiro kaniisada tahay qof masiixi ina guursatid la waaye
taasna waa idinku wada dar bonus waayo ilaahay ruuxdiisa ayaa kugu jirto ruuxdaasina way ku ilaalinay macsi ka fogaana xumaana ka fogeena xasnimo ka fogeena nacayb ka fogeena waxa ku bare kaliya jacayl iyo sida ilaahay loo mahadciyo celiyo iyo sida ilaahay dadkiisa loogu sheego jacaylkii ilaahay taas bay ku baraysaa aad iyo aad marka hadda u baahan tahay ruuxa quduuska ilaahay inuu ku siiyo oo ay heshid waa hadiyada waxay ku timaadaa rumaysadka hadal ereygiisa ciise masiixkii rumaysta wuxuu helayaa hadiyadaas ruuxa quduuska saa ilaah ugu caabudo hab ruuxiyan ah taas kaliya maahana ilaah wuxuu ku sii ballan qaaday jannadiisa quduuska inuu ku ballan qaaday marka ilaah rumaysta ereygiisa kadibna saa u heshaan ruuxa quduuska haddii aad doonaysa inaad qaatay ciise oo rumaysta masiixa afka qeyro qalbiga ka rumaysta in ciise masiixiya rabbigaa iyo badbaadiyahay kadibna nagala soo xiriir shaashada telefoonka ku qoran صح يا ندعي أمر جوسنا أبو أدم هذا ما تسكله نمعذ ربنا نعيس مسيح يجعلك إله يوهلتنا من روح قدوسك لما تهنا وذجرت أنت سبحانك بريء مجا أبا يويلك يروح قدوسك آمين آمين نبدأ كركي نبدأ مسيح كركي نها هاتو نبدأ